shiran caadi ahayn oo maanta golaha wasiiradu ay isugu yimaadeen oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre ayaa qabsoomay shirka maanta waxa lagu ansixiyay hab maamuuska xeerka lagu aas-aasay midowga Afrika ee quseeya midowga baarlamaanada Afrika xeerkaas waa la ansixiyay goluhu way ansixiyeen waxaana hor keenay golaha ku-xigeenka labaad ee gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdulla Cawad oo golaha hortiisa uga akhriyay ma jirin cid diiday dhammaan waa la ansixiyay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka wuxuu sheegay in hab maamuuskaas ay leeyihiin midowga Afrika ee quseeya midowga baarlamaanada Afrika inay Soomaaliya ka tahay gudoomiye aad iyo aadna uu muhiim u yahay in la ansixiyo ku-xigeenkuna uu yahay gabar ka tirsan baarlamaanka Djibouti kadibna wuxuu sheegay marka ay golaha ansixiyaan wasiiradu in loo gudbin doono golaha shacabka ee baarlamaanka oo iyaguna ansixin doona kadibna loo gudbin doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo saxiixi doona kadib waxa warbixin ka siiyay golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali khayre safarkii uu dhawaan ku tagay wadanka Belgium waxa uu sheegay mudane xasan cali khayre in dawladda Belgiumku waxay aaminsan yihiin inay si fiican ula shaqeyn doonaan dawladda Soomaaliya ayuu sheegay dawladda Soomaaliyana ay dawlad kasta oo si fiican ula shaqeyso siday ula shaqeysay si ka fiican ay ula shaqeyn doonto wuxuu sheegay in shirkaas waxyaabihii looga hadlayay ay kamid ahaayeen arrimaha amniga waxa uu sheegay mudane xasan cali khayre ra'iisul wasaaraha dalku in ay miisaaniyadeena ku kordhiyeen lacag dhan 100 milyan oo dollar taasina ay tahay guul weyn qodobada laga hadlayo kale waxa kamid ahaa warbixin ayaa waxa laga dhageystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Cabdinaasir Saciid Muuse Bahay oo isaguna ka warbixiyay arrimaha amniga dalka gaar ahaan caasimadda iyo guud ahaan dalka oo dhan waxa uu kale ka warbixiyay hawlaha xasilinta caasimadda Muqdisho oo iyaguna meel fiican maraya waxa kale oo warbixin laga dhageystay gudidii uu ra'iisul wasaaruhu magacaabay loo magacaabay inay maaragtay loo xil saaray fatahaadihii wabiga Shabeelle ee beledweyne gudigaas waxa hogaaminayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo waxaan u qaybsanaa gudigaasi 4 qaybood 4taa qaybood ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladaha wabigu u saameeyay shacabka Soomaaliyeed marka dood dheer ka bacdi iyo falanqeyn waxa la sheegay in arrimahaas fatahaada ah ee soo noqnoqonaya in wax weyn laga qabto ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane xasan cali khayrna waxa uu sheegay inay wax walba oo ahayso xukuumadda Soomaaliya ama dawladda Soomaaliya ay ku bixin doonto arrimaha fatahaadahaas shacabka Soomaaliyeed maaragtay ay wax ka soo gaareen qodobadaas ayaa ugu muhiimsanaa iyo qodobo kale waana mahadsantahay